halkaynu joognaa waa bartanka magaalada Galdogob. Galdogob waxaa ka socota maalmahan shaqo baahsan. Galdogob hadda waxay haysataa fursado badan oo ganacsi iyadoo magaaladani hadda muhiim u ah gobolka oo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo badan oo ganacsi. Waxay isku xirtaa laba dawladood oo ah Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ay ku taalo xuduud. waxaa halkan badeecadaha isku weydaarsada labadaasi dawladood. Itoobiya waxa ka yimaada raashinka qaybtii, raashinka qallalan iyo shidaalka. Puntlandna waxa ka gudba maciishadaha kala duwan kuwaas oo Galdogob isu mara. Dadka reer Galdogob fursadaas ganacsi ayay haystaan iyadoo maalmaha kana dhaqdhaqaaqyo kale iyo arrimo kale oo falal amni darro ay ka dhacayeen maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu waxay meel uga soo wada jeesteen in la ilaaliyo amniga degmada Galdogob. Galdogob waxaa ka socota maalmahan shaqo baahsan oo ay qabanayso dawladda Puntland. shaqadana way hogaaminayso dawladda hoose ee degmada Galdogob. Waa qayb ka mid ah mashruuca JBLG ee horumarinta degmooyinka. taas oo Galdogob ay fursad ugu heshay in laba wado oo ka mid ah wadooyinka magaalada bartankeeda ah laami laga dhigo. jidkan oo ah jidka hilibka ilaa iyo shirkadda biyo-gelinta ayay saakay shaqada ugu baahsani ka socotaa iyadoo kambaniga Kabeerko ay shaqadan fulinayaan. dawladda hoose ee degmada Galdogob oo maalmahan waday dhaqdhaqaaqyo isku tashiya iyadoo kulamo la qaadanaysay xaafadaha degmada Galdogob iyana waxa ay samaysay wadooyin kale oo isku tashiya kuwaas oo afarta xaafadood jay lagu saarayo iyadoo wadadii xaafadda sayidka markan ay dawladda hoose ka dhigtay jay. halkan waxaan soo kormeernay habsami socodka mashaariicda JBLG-ga oo ka mid yahay wadadan hadda laga dhisayo horteena maraysa oo ah wada laami ah oo gaari 800 mitir oo isku xoreysa laamiga hore ilaa suuqa hilibka. ruuxantii waxa ilaahay mahadiis ah mashruucan oo dhaqaale badan ee dawladdu ku bixisay inuu sidii loogu talagalay ku socdo iyadoo la taarget gareynayo waxbarashada, caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin wadooyinka. mashruuca JBLG oo dhaqaalaha ugu badan ay ku bixinayso wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland iyo degmada Galdogob iyo hay'adaha UNGBLG-ga sanadkan si wanaagsan ay degmada uga faa'iideysan doontaa hadii la idmo. iman maasan tahay wadada aan hadda ku taaganahay sida ogsoon tahay dhawaanba xaafadaha ka mid ah ay dhistay una dhistay qaab isku tashiya iyagoo gacan iyo la shaqayn iyo hawl badan iyo su'aal qaan ay ka helayaan maamulka degmada Galdogob. sidoo kale magaalada waxaa ka socda isku tashi tiro badan oo wadooyinkaas oo kale iyo wadooyin kale oo dhismayo oo horumar badan oo siyaada iyo suuqa magaalada laga dhisay intaba waa tilaabooyinka horumarka ama isku tashiga oo degmada ka socda. sidoo kale magaalada waxaa aad looga dareemayaa soo socodkeedu inuu aad u tiro badan yahay oo aad u imaanayaan gaadiidka xamuulka oo ama gudbaya ama magaalada ku degaya. xilliga lagu jiro xilli abaaraada galida ayaa aad uga imaanaysaa dhanka Itoobiya. magaalada barxadeeda maalintii markay ugu yadhay ilaa 50 gaari ilaa 30 gaari oo Euro Truck iyo baabuurta canameedlayaasha ah baa soo istaagaya. waxaad aad iyo aad u muuqda in ummaddu ka faa'iideysanayso xilliga la joogo iyo wacyigu suu yahay ay ummaddu ka faa'iideysanayso ismarankuna uu aad u furan yahay. sidoo kale shidaalkii ayaa degmada aad u imaanaya oo ka imaanaya dhankaas Itoobiya. waa marin shidaalkii iyo booyadihii ayaa magaalada u joogaan. waxaan bulshada reer Galdogob ama deegaankan aan kula dardaarmayaa oo cod dheer iyo cod gaaban baan ku leeyahay. degmada Galdogob jaaniska ay haysato iyo baaxadda ay haysato iyo nasiibka ay haysato yaan lagu ciyaarin. yaanta waxaa soo baxday in baabuur la qabsado, in baabuur la dhacdo, in wax taariikh hore ah laga soo sheekeeyo la yiraahdo 50 sano ama 20 sano ama 30 sano waxay ka maqnaayeen gaari reebel oo halka maraya ayaan qabsanaynaa ama ku dhageynaa. waxaan leeyahay nasiib darray ku tahay deegaanka, nasiib darray ku tahay dadka deegaanka degana, nasiib darray ku tahay baan leeyahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Bishaar Axmed Jaamac. waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarada reer Galdogob. waxaa jira waxyaabo badan oo nagu soo batay xayaataan dambe oo
ah degmada iyo deegaanka iyo bulshada dagac weyn u geysanaysa taasoo ah in dadka taraasiga ah oo waddanka soo maraya oo deegaanka maraya in waxyaabo khaldan iyo dhacdooyin xun ay nagala kulmaan haddaan nahay dhalinyarada reer Galdogob waxaan leenahay waxaan soo dhaweynaynaa degmada nabadeeda iyo horumarkeeda iyo dawladda Puntland iyo deegaanka waddanka waxaan leenahay laamiga iyo horumarka deegaanku ay wadaan waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynayaa laamiga dhalinyarada go'aanada laga soo saaray dadku waxaan kula dardaarmaynaa reer Galdogob inay nabadda iyo horumarka iyo bilicda magaalada iyo wixii waxqabad lagu sameeyo sida wadooyinka iyo fayadhowrka iyo wax walba ayaguna ka shaqeeyaan oo wixii magaranaysa hortooda guryahooda iyo nadaafadooda inta awood u leeyihiin si iskaashi leh oo wada jir ah inay ula shaqeeyaan dawladdu kaligeed ma shaqeyn karto dawladdu waa shacab waxa loo baahan yahay inay ilaashadaan si wada jir ah oo gacmo buuxa ah oo maalmaha fasaxa la yahay ardooyinka iyo magaranaysan daayirta inay uga faa'iideeyaan inay baraan inay yiraahdaan ku ababiyaan inay wax walba oo markaas loo baahan yahay dadkaasi ay noqdaan dad la falgala dawladooda iyo amnigooda ilaashadaan intaas aan kula dardaaran wassalaamu calaykum magacaygu waa Maxamuud Axmed Jaamac ku nool degmada Galdogob xubaasheeda iyo fariimaheeda og waxa ka socda degmada horumarin tiro badan waxa ka socda GBLG waxa ka socda wadooyin horumarinta degmada oo isku tashi lagu wado waxa ka socda horumarin badan waxa ka socda xaggii amniga oo meel wanaagsan maraya waxaan ognahay teeriya shala iyo teeriya duraad inay bilaabatay wadadii GBLG ee laamiga ahaa ayadina si habsami leh oo wanaagsan bay u socotaa kuwii kale wadooyinkii kale oo isku tashiyana kuwan hadda aan joogno ay kamid yihiin tan waa noo gabagabowday hadda ilaa 3 waddo noo hadhay ayaduna hadda aan bilaabaynaa hadii ilaahay idmo magacaygu waa Amiir Yaasiin Sheekh Cali Xaaji ku sugan degmada Galdogob ee gobolka Mudug waxaan hadda taagnahay xaafadda Sayidka oo laga dhisay la isku tashi lagu dhisay waddadan aan hadda taaganahay oo 1 kiiloomitir ah bulshada xaafadan degan iyo dawladda hoose ee degmada Galdogob ayaa waxay si isku tashiya u dhisay waxa ay ku guuleysteen waddadan 1 kiiloomitir ah oo quruxda badan in ay halkaan ka sameeyaan degmada Galdogob waxa ka socda horumar ballaaran waxa ka socda xaafadaheeda xaafadda Sayidka Horseed Howlwadaag 3 waddo kale oo waddadan ay 3 ku tahay waxa kale oo ka socda waddo 1 kiiloomitir ah oo GBLG-ga oo laamiga laga saaray laami ah oo GBLG-gaas oo ka hirgalay degmada Galdogob waddo 1 kiiloomitir ah oo isku xiraysa suuqa weyn ee degmada Galdogob iyo shirkadda biyagelinta iyo waddo kale oo magaranaysa kaalinka Inafanin Gaaras iyo Hotel Ramaas halkaas ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay horumarka degmada Galdogob ka socda waxa kale oo ka socda dhismayaal waaweyn hospitaalka dhismo ballaaran ka socda 2 bildin ayaa lagu soo kordhinayaa dayactir baa lagu sameeynayaa hospitaalka waa la qalabaynayaa waxa ka soo baxaya hospitaal ballaaran oo caalami ah degmadan waa degmo ballaaran oo border xaduud ku taala waxa maalintii soo gala gaadiid ka yimaada Itoobiya iyo Puntland gobolada dhexe business ballaaran baa ka socda waxa ku kala wareega agabyo badan iyo material ama dhismaha ahaado ama raashinka xoolaha ha ahaadeen wax walba waxa loo baahan yahay dadka reer Galdogob inay ilaashadaan horumarkooda masaalixdooda kan amni kan magaranaysa bulsho dadka degmadan imaanaya waa in soo dhaweyn ballaaran loo sameeyaa guud ahaan waxyaabahani oo idil iyo horumarada ka socda degmada Galdogob waa kuwa u gogol xaaraya ahmiyadda ay hadda Galdogob leedahay iyo tan ay yeelan doonto oo ilaalinteeda laga rabo dadka reer Galdogob Imaan Maxamed Gaani Soma Media
galdogob.